beesha caalamka ayaa ku guuleysatay dadaalo xooggan ay isugu soo dhaweynayso madaxda xisbiyada siyaasadda Soomaaliland gaar ahaan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka oo muddo sanad ka badan heshiis ka gaari kari waayay arrinta qabsoomidda doorashooyinka. kulan ballaaran oo madaxtooyada Soomaaliland ka qabsoomay maalinimadii shalay ayaa lagu soo afmeeray khilaafkii gudida doorashooyinka waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliland madaxda labada xisbi mucaarad iyo ergiga midowga Yurub ee arrimaha Soomaalida Danjire Nicholas Martinez. Xuseen Maxamed Maxamuud Xuseen Laki oo si gaar ah ugu waramay Bulsha TV isla markaana inta badan arrimaha siyaasadda rogroga ayaa aaminsan in dimuqraadiyadda Soomaaliland ay falxumo ku tahay in arrin xisbiyada Soomaaliland dhex yeelay ay beesha caalamku dhexdhexaadin ka gasho waxaana hogaamiyaasha asxaabta siyaasadda ku dhaliilay in aanay u tanaasulin danta qaranka. ilbaas laakiin runtii ayaan darrada waxa weeyaan heshiiskan ma ahan mid caqligeena ka yimi ma ahan mid maskaxiyeena ka yimi ma ahan mid kartideena ku keenay waa mid ay beesha caalamku inoo keentay mar kasta oo ay doodi ka timaado habka doorashadeena wax madaan aqligeenu iyo garashada siyaasiyiinteenu inaanay koronayn oo aanay ku filayn iyadu inay mashaakil ka xaliso marka runtii horta taas waxaan u arkayaa inay tahay nasiib darro inay haysata waayo mar walba problemkaaga siyaasiga ah hadaa dibad ka fisho iyo shisheeye ka fisho waxay u muuqataa in ay maxay ahayd aad wali qabya tahay oo wali guushaadu iyo horukacaagu iyo bisaylkaaga dawliga iyo ka siyaasiga ahiba inuu yahay mid maxay dhicisa ee halka ka muuqata mustaqbalkana waxaan rajaynayaa insha Allah inay taasoo kala soo noqon markay ay tan inoo timaado in ragga siyaasadda maxay inoo jaangooya inay yeeshaan kartida iyo aqoonta iyo maskaxda iyo garashada ah iyagu inay barnaamijkooda siyaasiga ku filaadaan. geesta kale Xuseen Laki waxa uu ka hadlay saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada oo wax isafgarada laga gaadhin isagoo sheegay in aanay suurtagal ahayn in doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay waqtigeedu ku qabsoonto. saami qaybsigii deegaano badan baa taabanaya in hanaanka maanta wax loo qaybsaday aanu hanaan maxay iyaga ku filanahay ama ha ku saxnaadeen ama ha ku qaldanaadeen ama xaq ha u ahaato ama ay u ahaan laakiin dad badan baa taa runtii marka laga hadlayo sida maanta aan ku qanacsanay xaqna u leh idin la qanciyo marka waqti badan bay u baahanaysaa doorashadana ugu yaraan kama yaraanayso ilaa sanad iyo laba sanadood in ku qabsanto aniga aragtidayda. Ahmed Salebaan Arab Ahmed Kaafi iyo Sidiq Waabeeye Bulsha TV Burco.